nimanka Itoobiyaanka ee maarta shaqooyinkii anaga ahaan jirnay dhan ayaga la wareegay baashilooyinkii dhismihii dhagaxintii hawlo qaladii meel alla meeshan tagan wayna daba taagan yihiin markii hore ayaga lay ahayn hadda naagi bay nagu soo dareen oo Itoobiyaanka ah meelan marayna ma lahan ayaga nagu dhagin marka nimankaas aan u baahanay in meel laga saaro aradii dhan ba ayaga naqdeen talaabo ala talaabadii aan qaadno Itoobiyaanka nagu dhagin anaga Puntland 3 sano joognaa carruur baan ku dhalnay nabad baan ku qabnaa alxamdulillah marka nimanka kan Itoobiyaanka ah barabna in meel laga saaro wadanka way naga saarooyin فهمت ولا مركن كاسان u baahanay in nimanka Itoobiyaanka hata qorin noo dhiib anaga la dagaalayna idinka hada dirso isleediin anaga meel iska saarayna anaga isku dhiig ah anaga isku diin ah anaga aslan Soomaali aslan nahay qorin noo dhiiba anaga burburinayna waliba يا ولاله ما فهمتي لما كمان laga saaro shaqooyinka dhan ba ay nagu dhagan yihiin dawladda waxaan ku codsanaynaa si degdeg ah in ay meel laga saaraan ما فهمتي waxaan ka baqaynaa hadda aan weerarno hadhow dawladda inaan qabato anagu dhan saas aan hubaysan ma fahantay alaabteen saas aan u wadana jifooyinka marka nimanka Itoobiyaanka u baahan meel in laga saaro ما فهمت ولا nimanka Itoobiyaanka meel laga saara dawladda anaga qabato shaqooyinka ayaga nagu haystaan bariiska ayaga naga haystaan dhismihii hawlo qaladii baashilihii wala xamaalkii meel ana meesha ma ayaga dul taagan toban bay u socdaan ma fahantay marka dawladdu waxaan ku codsanaynaa in meel laga saarto